kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka wararka qodobada wararkeena xilligan waxa ay kala yihiin hogaanka ahlu sunna oo shir degdeg ah uga socda magaalada Dhuusamareeb iyo ciidankii la geeyay oo magaalada qalqalgeliyay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo xarumaha muhiimka ee magaalada Dhuusamareeb si degdeg ah ula wareegay xog hay'ihii gobolka Banaadir oo qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ku geeriyooday golaha wasiirada xukuumadda federaalka oo go'aamiyay ciidanka kaliya ay isku aamini karaan iyo Axmed Madoobe oo kulan muhiim ah la qaatay musharaxiintii la tartantay ballanqaad aan horey loo aragna u sameeyay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo fidsan hogaanka ahlu sunna ayaa shir degdeg ah uga socda magaalada Dhuusamareeb iyadoo maanta magaaladaasi la geeyay ciidamo booliis oo ka socda dawladda federaalka wararka laga helaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta rasmiga ee maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka socdo kulan xasaasi ah u dhaxeeya hogaanka ahlu sunna sida Cabdirasaaq Al-Shacri Macalin Maxamuud iyo madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in kulanka intiisa badan looga hadlayo amniga guud ee magaalada Dhuusamareeb iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ee maanta geysay halkaasi iyadoo hogaanka ahlu sunna ay walaac ka ciidankaasi marka uu soo gabagaboobo shirka ayaa la filayaa in hogaanka ahlu sunna ay war-saxaafadeed ka soo saaraan shirkooda isla markaana ay uga hadlaan arrimo badan oo ku saabsan xaaladda Dhuusamareeb iyo tabashooyinka ay qabaan dawladda federaalka dawladda Soomaaliya ayaa saaki waxa ay si lama filaan ah magaalada Dhuusamareeb u geysay ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaas oo la wareegay ammaanka garoonka diyaaradaha xarunta madaxtooyada iyo xarumo kale oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb arrintaasi ayaa waxay ka siisay hogaanka ahlu sunna dabadeedna isugu yeeray shir degdeg ah oo arrimahaas ay kaga hadlayaan dhinaca kalena ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee maanta la geeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa durba la wareegay xarumo muhiim ah oo ku yaala magaaladaasi ciidamada booliiska ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta la wareegay dhammaan xarumaha muhiimka ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ciidamadan oo saaki aroortii hore laga qaaday garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa gaaraya 120 askari waxaana hogaaminaya sargaal lagu magacaabo Farxaan Qorole oo ah taliyaha booliiska sida gaarka u tababaran ee Haram Cad sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila wareedyo muhiim ah ciidamadan ayaa la wareegay amniga garoonka Ugaas Nuur madaxtooyada dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb iyo xarunta lagu qabanayo shirweynaha dib u heshiisiinta ee maamulkaasi xaaladda magaalada ayaa ah mid kacsan iyadoona ahlu sunna dhankeeda abaabul xoogan ay ka wada halkaasi lama oga siday wax noqon doonaan waxaana horey madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir uu shaaciyay in dawladda dhaqdhaqaaq ka dhan heshiiska ay wada galeen ay ka wada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dhawaan dhici doonaan shirweynaha dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Galmudug iyo doorashada hogaanka sare ee maamulkaasi xog hay'ihii gobolka Banaadir ayaa qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ku geeriyooday qarax ayaa waxa uu ka dhacay goob control oo lagu baara gawaarida oo ku taala agagaarka isgoyska kilometer 4 wadada aada garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaana uu ahaa nooca gawaarida lagu dhajiyo goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in iyaga oo baaritaan lagu hayo gawaarida aada garoonka uu gaariga qarxay isla markaana uu ku geeriyooday Maxamed Sheekh Cilmi Maxamuud Amiin oo ahaa xogayihii hore gobolka Banaadir xilligii maamulka Muungab iyo Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale waa qaraxii labaad ee maanta ka dhaca magaalada Muqdisho waxaana maanta barqadii miina nooca dhulka lagu aasay ku qaraxday gaari ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya agagaarka carwadii hore ee Taleex degmada Hodon ee gobolkan Banaadir geesta kalena golaha wasiirada ayaa go'aamiyay ciidanka kaliya ay isku aamini karaan golaha wasiirada Soomaaliya ayaa isku raacay go'aan ah in ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya oo kaliya ay ilaalo ka noqdaan barnaamijyada ay dhigtaan wasiirada xukuumadda Soomaaliya shir ay yeesheen golaha wasiirada ayaa la isku raacay in xafladaha shirarka waaweyn iyo munaasabadaha oo dhan ay mas'uuliyad ka saaran tahay ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya haddii lagu qabanayo gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa go'aankaasi ka mid ahaa in ciidamada ay la wareegaan ammaanka goobta uu barnaamijka ka dhacayo saacado ka hor inta aysan tagin mas'uuliyiinta iyagoo baaraya hoolka iyo guud ahaanba hotelka lagu qabanayo ciidamadaasi shaqada qabanaya waxay maalintaasi leeyihiin lacago ka dheeraad ah mushaaraadkooda lagu darayo qarashka xafladda ama
shirkaasi la qabanayo ku baxaya sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta. si rasmi ah looma oga sababta keentay, balse waxaa la aaminsan yahay inay arrintani qayb ka tahay adkeynta amniga shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dowladda kadib qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho. waxaa jira cabsi xoogan iyo walaac laga qaba isku halayn la'aan shaqaalaha dowladda qaarkood ah, iyadoo la tuhmayo inay ku dhex milan yihiin xubno la shaqeeya ama ka tirsan ururka Al-Shabaab. madaxweynaha la doortay ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kulan muhiim ah la qaatay musharaxiintii la tartantay, isagoona ballanqaad aan horey loo arag u sameeyay. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta aqalka madaxtooyada ku qaabilay musharaxiintii ka qayb galay doorashadii madaxtinimada Jubbaland ee 22 bishan August ka dhacay. madaxweynaha ayaa musharaxiinta ka dhageystay aragtidooda iyo wixii fikir oo ay ku biirinayaan geedi socodka Jubbaland ee dhammaan dhinacyada ay khibradaha ay u leeyihiin. musharaxiinta ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay martiqaadka ugu sameeyay xarunta madaxtooyada, iyagoo sheegay inay la shaqeyn doonaan xukuumadda cusub ee uu hogaamin doono madaxweynaha dib loo doortay mudane Axmed Maxamed Islaam. waxaana shacabka reer Jubbaland meel walba ay joogaan ay ugu baaqeen in xukuumadda cusub ee madaxweynuhu soo dhisi doono ay garab istaagaan. dhinaca kalena madaxweynaha Puntland ayaa ku baaqay in wada hadalka dowladda federaalka iyo Somaliland lagu qabto magaalada Garowe. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Garowe ayaa dalbaday in wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland iyo maqaamka magaalada Muqdisho lagu qabto magaalada Garowe. waxa uu sheegay in wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ay tahay caqabad kale oo hortaagan dastuurka Soomaaliya, waxaana uu sheegay inuu ka codsanayo Somaliland inay wada xaajood iyo wada hadalba u yimaadaan magaalada Garowe. dadka reer Puntland ayaa ugu baaqay inaysan noqon kuwa doodaha iyo xaqa ay leeyihiin aysan ka baqan, isla markaana maamulka Puntland uu diyaar u yahay martigelinta shirar looga hadlayo maqaamka magaalada Muqdisho iyo wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland. sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa soo hadal qaaday arrimo la xiriira maqaamka Muqdisho oo uu sheegay in inta badan ay soo noqnoqotay doodiisa, waxaana uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay in Garowe looga doodo sidii magaalada Muqdisho ay u yeelan lahayd maqaam u gaar ah. ugu dambeyntiina Somaliland ayaa sheegtay in Korneel Caare mudan yahay in la toogto. taliyaha guud ee ciidamada militariga Somaliland Nuux Ismaaciil Taani ayaa weerar afka ah waxa uu ku qaaday Korneel Caare oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Somaliland, hase yeeshee ka goostay isla markaana dhowr mar la dagaalamay ciidamada Somaliland. shir jiraayid uu maanta warbaahinta ugu qabtay magaalada Hargeysa ayaa uu sheegay in Korneel Caare uu ahaa korneel ka tirsanaa ciidamada, hase yeeshee uu yahay nin loo haysto dilal badan oo uu geystay dad ku nool deegaano ka tirsan gobolka Sanaaga. waxa uu taliye Nuux Taani hadalkiisa intaa ku daray in sidoo kale uu yahay nin lunsaday mushaar ay lahaayeen ciidamada Somaliland, isla markaana uu mudan yahay in maxkamad la saaro loona qisaaso dadkii uu dilay oo ka badan 10 ruux sida uu hadalka u dhigay. waxaan leeyahay Korneel Caare waa dambiile, dadkii uu laayay ayaa weli kiiskooda maxkamadaha horyaala. waxaa jira dad u doodaya, waxaana leeyahay ninkaasi waa dambiile, waxaana uu mudan yahay in la toogto, ayuu yiri taliyaha guud ee ciidamada Somaliland. Korneel Siciid Cawil Jaamac Caare oo horey uga mid ahaan jiray ciidamada Somaliland balse ka goostay ayaa dhowr mar waxa uu dagaal kula galay deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag ciidamada Somaliland, isagoo ku hanjabay inuu weerari doono magaalada Hargeysa. guud ahaan warkii aad kala socoteen kulanka wararka waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. waana mahadsantihiin.